odayaasha iyo waxgaradka uu ka soo jeedo dhibanihii ay waxyeeleeyeen shaqaalihii ajaanibta shirkadda shidaalka ee Channel Energy ayaa maanta baaq balaaran u diray xukuumadda Soomaaliland waxaana kulan saxaafadeedkani ka hadlay gudoomiyaha degmada Gumburlibaax aqalka beesha odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi waxaana ka hadleen xaalka deegaanka Gumburlibaax iyagoo tilmaamay in dhirtii ku taalay deegaankaasi oo ahayd kuwa waxtar u leh xoolaha iyo dadkaba dhulka la simay sidoo kale waxay beeniyeen warar ay warbaahinta qaar ka qoreen oo sheegaya in hay'adda shidaalka lagu rasaasay deegaanka Gumburlibaax iyagoo gabagabadiina ka hadlay ninkan muwaadinka ah ee dadka ajaanibta ah ku dileen deegaankiisa iyadoo loogu daray sida ay sheegeen xabsi aynaysan jirin wax ay xukuumadda Soomaaliland u qabatay sidoo kale waxa ay eedan ku udusha uga tuureen maamulka gobolka iyo taliska bilayska oo ay sheegeen in aanay wax u qaban waqtigii hore ay hay'addu iimaneysayna ay lahaayeen in uu daba fadhiisan mayno waana kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha oo ka hadlay saddex qodob baan ku hadlaynaa waxaa ka mid ah nin lagu dilay kaamunkii laga dhigay shirkadan shidaalka doonaysa waday nin lagu dilay soonaha ay degeen ee noqdayta ka sokaysa oo 9 casho iminka yihiin oo dawladdu ogtahay oo markii ay soo guureen 2 maalmood iyo 2 habeen koona isagoo ku jiray gaalada oo ka baxdo loo bareeray in ninka lagu qariyo meesha waxaanu ka xunnahay arrintaa Gumburlibaax lagu soo qaaday been abuurka laga sheegay oo markii la isugu tigay la yiri Gumburlibaax waa ninka rasaas ku dhigay waxa ka jira waxaan doonaynaa xukuumadda shirkadda beenta laga sheegtay waxa la jiray taqaladka ku waramaysa in isla markiiba wax laga qaban jiray saddex geeri kale oo kale waaweyn marka soo qaato midkii waxa ku nool 7 neef oo ari ku nool ama geer wax sabahan noqday xaaq marka loo eego marka dhindin loo eego marka caleen loo eego marka loo eego ubaxa ka soo daatan loo eego manka marka loo eego mid kasta ha ahaatee 7 neef ku nool sabixi ka soo sii daayay soo buuxay geedka u tagaa markaad eegto laga geedo karo min 7 iska ku nooshahay 210 neef ayaa halkaa ku nool meeshii caynkaas ahayd waxaa jiri jirtay waqti xitaa qaraabka dadku ka burtaa ka buuxi jiray oo ku yiilay maanta hadday jilab tahay iyo hadday garoobtay hadday qurax tahay ilaa wax allaale wixii geed ka baxay waxa lagu soo daayay tuuladii 6 wado oo min 12 mitir dacay walba way arkaysaa waxaan filayaa dee laysu tilmaami maaye meesha hadda wixii yani magaranaysaa ay xaalada imika ka jiray sida loo galay dee waa la arkayaa waxaana dee yani magaranaysaa in mas-uulka ciddii markaa dawladda ayaa mas-uulka si kastaba ahaatee raggii lahaa way joogaan dee magaranaysaa dawladda raggii lahaa cidna daba fadhiisan mayno raggii lahaa maanta waxa weeyaan si kastaba ha ahaatee dee waxaa loo baahan yahay in dee meeshii haddana la yimaado waa laga guuray lama baahna in la yimaado oo wixii dee la yeelayna la eego wixii la eego ayaa dee la rabaa Axmed Hanad Gurey Baqaye wararka Samsa TV gobolka Togdheer